بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق الله العظيم. إلهي بأمهد سبحانه وتعالى وحاق كدب أمهد علينا علماء مرتدينوه وقت بدلنا كب حسي meel dheerna uga timid inay walaalahood iyo dadka muslimka ee Soomaaliyeed ee waddanka jooga wixii ay karaan ay u faa'iideeyaan iyagana subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa jalla wa ala inuu miisaankooda xasanaadka ugu daro maalinta aakhirana midii anfacda ee jannada lagu abaalmariyo uga dhigo innagana ilaahay waxaan ka baryaynaa in lagu anfaco dadkii si wanaagsan u dhagaystay u faa'iidaystana uu inaga dhigo culimmada waxaan leeyahay ku soo dhowaada waa dadkiinnii iyo dalkiinnii dadkaa badan iyo buuqa aad maqlaysaani waa dadkiinnii oo jecel araggiinna jecel in idinka faa'iidaystaanna u yimid masaajidka salaada casar markii la tukaday waxaan filayaa dadku ma bixin waxaan u malaynayaa salaada casar kadib hal saac baan imid masaajidku waa buuxay waxaan ka rajaynaynaa dadku si tartiiba in loo dhagaysto intaasina jacayl culimmada loo qabo weeye marka soo dhowaada ziyaarada iyo imaatinkana waxaan ka rajaynaynaa inaad mar iyo laba iyo saddex baa nagu soo laabataan waad ogaataan dunida meel kastoo tagtaanba halkan waa dadkiinnii oo araggiinna jecel inay idinka faa'iidaystaanna u diyaara dadweynahana waxaan ka rajaynaynaa in masaajidka la ixtiraamo culimmada martida inoo la ixtiraamo si adaabla loo fadhiyo dhagahana loo furo waanada la inoo keenay iyo waxa layna leeyahay aan ka faa'iidaysanno dadka bannaanka jooga waxaan ka rajaynaynaa kor iskariininnada si toosa looga daawanaya iyaguna ha faa'iidaystaan dadkuna ha ka faa'iidaysto buuq iyo qayladana iska dayna khayr allah idin siiyo
si aan akhriya adduunba ugu liibaano mowduuceenna caawa culimmada afartiihi asaas waxaa u ah xadiidkii nabiga sala allahu alayh wasalam ittaqi illaaha xaydumaa kunt wa atbici asayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan xadiidkaa saddexdiisa qaybood qaybta koowaad ee ittaqi illaaha xaydumaa kunt waxaa ka hadli doonaa fadiilatu sheekh ilqaari cabdirashiid cali suufi haddana ayna tukiyaadna wada taqaanaan qaybta labaad wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha waxaa xigi doona sheekhana sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo isagana aad taqaanaan qaybta ugu dambaysa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan fadiilatu sheekh doctor cali moxamed saalix ayaa isagana ka hadli doona qaybta ugu dambaysa waxaa lahaan doonaa sheekhana fadiilatu sheekh maxamed idriis addi lamaanata ilaa ahliha intaas afartaa mixwar ama kelimadood yaanu culammada siin doonaa waanan u qaybin doonaa hadalka insha allahu tacaala markay noo dhammaatana salaadda cishahan tukan doonaa halkaasuuna barnaamijkeennu ku dhammaan doona haddii alla yidhaahdo wixii soo kordha wakhtigeedaan idinla socodsiin doonaa haddii alla yidhaahdo waxba culammada dee haddii aan magacyadoodii iyo taariikhdooda sheegi lahaa laba sababood baan isaga daayey waa marka koowaad ee wakhtiguna inuusan dheeraanin waan ugu talagalay marka labaad waxay ugu fiicneen iyagoo iga maqan inaan ka hadle ma doonaya nahyigii nabigan aan ku dhaco ahaa qofku hortiisa haddaad wanaaggiisa ku sheegto walaalkaa dhabarkaad jebisay anigana inaan muta ma doonayo qolada waxaa maanta haddii la arka afka ciidha looga shuba la yidhi anna kuwaa inaan gala ma doonayo iyagana dhabarka inaan jebiyo ma doonayo gunaaladka waxaanu dhihi lahaa ragga culimmada aan khayrka badan ku tuumayno ilahay waxaan uga baryaynaa saan filayna si ka fiican inuu ka dhigo waxaanaan ogeyn ilaahay uu dhaafo waxaanaan ogeyn ilaahay u dhaafo asturay sida aan ku filayna isagoo ka khayr badana kuwa ka khayr badan allah ka dhigo waxaan ku soo dhoweynayaa fadiilatu sheekh ilqaari sheekh cabdirashiid maca qowlihi calayhi الsalaatu wassalaam ittaqi illaaha xaydumaa kunt falyatafadal mashkuur culimmada waxaan siinayaa mid waliba 15 daqiiqo waxaan rajaynayaa in hadalka lagaga bogan karo ولكل حادث حديث تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته. إلهي جل جلاله محبتي سنوكل مي في بيت من بيوته حنكبر ينا إنو نوكل ميو في ظله يوم لا ظل إلا ظله متحابين في الله إنه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله
بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما يذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم نفعنا الله وإياكم بما سمعنا من كلام ربنا العظيم ولله بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت كان لقى بقى يا الله كان ليس أمري اتق الله إلهي كبق إلهي كعبسه حيثما كنت ملك استو جوكتي هداد كلا جوكتي هداد كليقاتهاي هداد عافمات قبته هداد بكته هداد ودن كاغا جوكته هداد مسافر تهاي هداد داليرتها هداد دقتها وقوودهاي قوري مقدي قديهيس هداد كجرتي البابada ku wada xiran yihiin الله كبق حقيقة بقدada أما بقشada ad ka baqayso rabbiga xaqiiqadeedu gormay ku imanaysaa waa marka rabbiga taqaano shahawaadka insaanka inta badan gafsiya taqwada ilaahay waxa ugu xoog badan sida dawada socotaanba الشهوة بين الرجال والنساء رجل يدمر كشهوة كدحيس حديثك والله سعوتان صدح ذين بور هوستو ذا مال كهفيها قد أقلي روب كيو بحال كقلي طب ده نرجع كوها بسري أو كو أو ذي أو مالي أوعد درس هذا أنا ما تلفن مجري وحبنا مجري نول بابا إلهي وحكو بريء عمل صالح هوري وهر مرسلي وحكم لها نن يري إلهي وحجعلها قبل سيدا رقو قبلها وجعلها سيدا وقبضا إن بدن بندبتاقنا معناها وحنو دبتاقنا وحوي فاحشة يزنا لكن وي ديدي وتقوى دي عفس الشدى ربي قد ديدي إلى مركي دنبه ay abaar iyo dhibaato ay timid oo ay baahatay oo ay timid iyadoo raaqiba ah markaana aan siiyay 120 diinaar oo dahaba si ay nafteeda igu ogolaato waa ka sheegayo isagu rabbigiina wuu la khitaabaya wuu la hadlaya subhanahu jalla jalaaluhu ilaahu wad ogtahay inaan saas sameeyay markii aan makansaday oo wax iga hortaaganaysay jirin وحالتي باي ديار تهي أي كلمة داس كتير اتق الله الله كبق ولا تفض الخاتم إلا بحقه خاتمك أو بمعنى يعني يوجد بك رذا جبن إلا بحقه وقوره كلمة داس قلبي ستابتي ويكون اسكداي lacagtiina kamuuna ceshanin arrintaana ilaahay oo adiga dartaa haddaan u sameeyey buu yidhi ilaahay dartii buuna u sameeyey dhagaxa naga dulfay dhagaxiina meeshii buu ka duulay xadiidkii kale waad garanaysaa ninkii saxaabiga ahaa saxaabi weeye zamankii nebiga rasuulullaahi buu la joogaa afdal bii oo ku jira walaakiin waa bashar timir buu iibinayey bannaankuu taagnaa
qolooyin baa markaa gabadh baa timid dhaban qurux leh oo timid timirtay rabtay inay ka baayacto ay ka gadato gudaha mid fiican ku jirtaa buu yidhi gudaha markii uu galayna shahwadii baa qaaday gabadhii buu dhunkaday ittaqi illaaha waa joojisay annahu qalbigiisa macrifada ilaahay baa ku jira macrifada ilaahay baa ku weyn ka bacdi kelimadaasi way taabatay waa tii uu markaa soo cararay oo masjidka yimid oo weliba sida axaadiis ay sheegayaan oo saxaabadii ku hormaray oo dhaheen wax kale haddaadan samaynin iska istikfaar oo iska qarso arrintan ma uusan yeelin ilaa nebiga uu tago calayhi salaatu wasalaam oo nebiga arrintiisa u sheegto aayaddii salaada aan ku akrinaynay baa soo degtay وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أو يا لينك أو وايكا خلاص الله وقدم بالله سو صلاة ما تكن إن الحسنات يذهبن السيئات أنا كما أشكال كلي ما هي لأمتي جميعا إخواني مرك ربي أنا برنو فرصة جمعي المبارك شو يمد دليرة وبعدين هلك كان أنا وكلمة ده وضمنا عرفتها كلمة الشباب بأنها مركن نبى حلي وراح يجا صوت دري قدروا وحيل الشباب جيس كأفريقيا وحياة لك اللغة غناء دليرة ذي سكدر مركا يا أيها الدليرو لقيت تبارك الله فيك ربي جين برتا معرفة وياشا مركز هتقودي سيدين من يشاء من هو الله ربنا الذي خلقك كو أبو رئذون جني نطفة ذهي حلقة من ماء مهين مضغة قبل يرو هلبا إلهي جل جلاله على وشه يذا كو أبو ري كبعدي كسو صاري هذا ضعيف ومسكين وحبان قرني عنك كيني هو يذا كبري سيدا عاد عنها سلس وبحضه عملية الرضاعة أرنتها كعلين هذا ضد بها يقول قاركو ديرا أنت إن لو علي وقتك سلو علي استهجاء وضبها انتهي التكرار من ديننا وإلا فتحنا مع هذه يقول له عليها ما صورة ذاك الأغريو حقيقة سنة قلبي أغتابتها لدونها حقيقة رب العالمين ملك الملوك ذي الجلال والإكرام دبا إذا أدوغات دون كان إله بحكمه إله كلام مجرو أمور هذا دنيا آخرة بيد الله آيات هذا أنا أغرني أما يجيب المضطر إذا دعاه محوك هذا سبنا إليه محوك وشيء مضطر كان مضطر قاعد دباتيسن الدفك كل عي كربيسن أما مرض هلا كربيسن هذا أما فقر هلا كربيسن هذا أما مشاكل كلها هيستو كي أجيب ويكشف السوء وكربتنا كفيدي حماتنا كفيدي من هو إله مع الله ما إله كلا جرى ما هو الله هم حامرك كربتنا يدبكنا يكون دائم تدي إله ماذا برن سو ما لدد وانا كسوي مسلمين لكن وانا ولي مرة من إنسان حكومة إيه وح وانا كسن إيه ماركتي استقرار إيه ما هي ليسان إلى أد ربي كبرتان ربي برتا تعرفوا على الله أجيب إلهي بس كبر يا أنا أجيب دعوتك مخلوقات كان أدركتور وحكاسو قال يا وقضاء من الله dadka waxa ka soo gaaraya ee kaaga imanaya dadkana aad arkayso kulligood xamaali soo meeshan kama buuxo xamaali waa arkay kuwa hataa xambaarsan oo alaabda gaari dameerkii oo kale ayaga wada waan arkay meeshan nin baa badaaca kala soo degay taajir oo maal qabeen ah dekadu keensaday dekada markuu alaabtii ninka xamaaliga u soo qaaday markuu dukaankiisii u keenay ayuu wuxuu ku leeyahay waa mahadsantahay haddaad alaabtan isiisay waa qalad soo ma maxamaaliga alaabta siiyey waa uu soo qaaday soo ma alaabta yaa siiyey isaga iskale alaabtiisa يا إخواني بارك الله فيكم كل العطاء من الله وحكى سولو سيي إلهي باكو سيي dadkani waxa ka soo gaaraya waa xamaali waa shaqaalo way ku soo gaarsiiyeen mooyee كان كوسو قري ورب العالمين ملك الملوك ولذلك إلهي وحنا أمري في كتابه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة كيف كلمة إنك من الصلاة كلمة لبا ويمن مشاكل باكو يمن كيف إنك من صلاة حق هذا وعررة وبين يدي الله استاجا
إلا قليل إلا نادرا إلهي باشاكو أمره تستعين بالله برك ربك إن هدي أمبرنو نسعد في الدنيا والآخرة ربك إن هدي أمبرنو حقيقة أخذه وبطشه أن أغانو معاصي إيا ذنوبته إيا ارتكابك إيا مخالفة الله يمن يسون إلهي كقرسوني هداد بناك جوكتي هداد قدها كجرتو سواء منكم من أسر القول أحمد الواجب كي أنا كتغيني سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار عيار يار إلهي عيد المسود الجن إلهي وحاسو مذا معرفة ديسي علم جيسا من أسر القول نك هذا الكسريستي ومن جهر به كلا جهري ومن هو مستخف بالليل هبين قدعرة مقديسة قريسة وستيسة كم كجرة وسارب بالنهار ما لنعد كلا جوج إلهي وسوق مد إلهي وحبه كما قرنا يا إن ربك معرفة ويالة أيها تقوى ديسة كسلسينيسة وكسينيسة تقوى الله حقيقة إذا صلاة ذات كهليسة المتقي بين يدي الله وحستاج يسوي بين يدي رب العالمين إنه تواجيه مسكين كاس ضعيف كأ جبار السماوات والأرض بهر تاجيه ولولا إذنه سو إذ ما أوسن استاجين لو ما رأوا قلادين بإذنه ما شاء فيه مركا يا أيها الذين يروا مرحلة ذي أقدر نيد بجوكتان مرحلة عنفوان الشباب بجوكتان مرحلة ذي تقوى إلهي هدي إلهي إذن وافجيو أتكل بان إلهيدين سعادة الدنيا والآخرة تكون إلهيدين نكن اللي يرى مستقبل باهرتي سأمغضى الهب لقارب وسليه هي وحنو وسليه هي قري إيو قاري إيو قبر إيو وحوناك سنكو وسليه هي كل قدوة بيد الله إلهي مرك على غفي عن ليالو إلهي على غفي عن حقت كل يالا بالإيمان والعمل الصالح إيمانك حقوق كبعيا أذو عملك صالح بدية أذو ذكر جيسا بدية أذو ورد قرآن له أذو وقت إلهي سي فيسبوك يو واتساب يو هي محيا سناب جات يو جرام يو وحا وقت قاعد سينيش إن وقت ربي قاعد سيسو أذو حاسونا نسكحلو عظمة الله يوينات جاءت كفكرته بين يدي ربك هرجوك ستو قيام الليل يتكتو تقوم بين يدي الله ذاتكو هردا إلهي ولي بواجع لي هاي شاب كدني يرضى بين يدي الله تهر استاغ في ظلمة الليل يتبتل له أؤيا شبه به والله سعادة الدنيا والآخرة مركز هذه الإنسان حاجات كاغودن مركاسو إلهي قديا إلهي أسباب تنظاهر كأو مباهنا ميل وحكاغا كينين كل شيء اسمايو ولكن يغنيك إساقا نوبا لنقاضي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا يري هذا القاس من رب العالمين الله كل واغا الله هذا كلام الله وعده صادق ومن يتق الله يجعل له مخرجا مشاكل باكو هيستا وحباك حرحرا بابك استغوذا قراعا ولا وفريا إلهي باب بلن قاضي والله لا يخلف الميعاد ويرزقه ولبا فرج كليا ماهي رزقي أوسن كور هينين إيا ماشو مال أوسن كفلين با إلهي كسينيا يا كوبي كلام ثلاثة سنين إلى ملد صحابة هلا شيء كيو إلى وقتنا هذا إلى نفسك أديك تجاربتك وصومري ربك أن أنبرنو ذكر جيسان كد ذالنو دعاة إلى الله وإلى رسول الله أن نقولنا هذا الكيك وحنكسو ختمة يا يوسن إلى نافن بري بقى أنا سفر كجرة في باكستان بنم باكستان يعني إيربورك يشغل نمت wuxuu yiri xageetaho Soomaali baan ahay baan wuxuu yiri anigu waxaan ka imid Kenya iyo Uganda iyo dhulkaas sanad iyo bar ayaan soo joognay anagoo jamaaca khaarijin baan ahay buu wuxuu yiri dad waxaan u tagnay buu yiri
hadalka kugu dheerayn maayo safar baa tahay ninkan idinku dheerayn maayo waa la ii soo gaabiyey wuxuu yidhi dad waxaan u tegay qaaqaawan ayaan meel ugu tagnay geed baanu samaysanay halkaasaanu degnay markaasaan noo yimaadeen mid baa noo yimid wuxuu yidhi buu yidhi quruxdan aad leedihiin seen ku helaa iska islaam uu islaamay go'ii uu wato garabka u saarnaa un baan hoosta ugu xidhnay koofiyadana waa wadanay koofiyad baan madaxa u saarnay ka bacdi isagoo faraxsan markuu shahaaday teegeykii oo reerkiisii buu tagay waxay ku dhaheen quruxdan xaggeed ka keentay geedkan hoostiisay taallaa quruxdu wuu soo cararay buu noo yimaad 25 nin baa noo yimid 25 waa wada qaawan yihiin maba garan sida kan inay isku xidhaan annagaa u wada xidhnay koofiyadihiina waa siinay waa islaameen wayna raaceen mudday qur-aankii dikrigii bateen hadda raggaasi ducaad bay ahaayeen waxaan hadalkaa ku oranayaa buu yidhi annaga badaan soo goynay oo diyaaradaan soo raacnay idinka xuduud baad leedihiin dadkaas ee diinta ilaahay gaarsiiya yaa ayuha soomaali nafsi diinadiisan idin qabanin ducaatan ila allah wa ilaa rasuulillaahi noqda oo dadka ilaahay wuu dhaartay aayaddii aad salaada ku maqlayseen ilaahay baa dhaartay inuu jahannamo buuxinayo la'amla'anna jahannama say makhluuqu uga badbaadi lahaa innaguna aynu uga badbaadi lahayn jinsi albashar walaalaanu nahay aabbihi hooyaana wada dhashay uga wada badbaadi lahayn aan ku dadaalno مستعدين إن شاء الله وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الشيخ الله يسير إلى وجه القرآن يا بدر معنا وين بديسني قيل كمية معانيه السينا وين مقلي وحد مني شيخ واجب كي سوا قتين جارسيه إننا قررنا قاعدنا ويكون قاعد الله نقدم هذا حنقول يا فضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل قيبت لواضع حديثك واتبع السيئة الحسنة تمنى فليتفضل مشكورا سلام عشان يتوفق يقوله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام حديث كسوحة وكنت المامية حمه هدو كاردعو وانا كدبك وترتر اياي إنسان كسيدي السبب وإنسان straight line وما صعده وفك بني آدم كان نولوشيسو انت بدون الزقزاق كوريو هوسبو صعده waxaa waajib laynaga dhigay furuudul caynka inaynu ilaalino marka meel ka sarreysa inaynu istaagno si sagsaageennu markuu dhaco aynan u hoos weydaaranin sunan tiro badan baa laynoo jideeyey marka waxaa laynaga mamnuucay waxyaabo mamnuucaat ah iyana waxaa lagu xeeray waxyaabo makruuhaat ah si aanad kuwa hoose u gaadhin si bini aadan baa tee haddii qaladba kaa dhaco إله غفور رحيم ما جرى وحلينا فري مركها إنه وناك كدبق إنه السيئة كستوينا قد عضا وناك قاس باتر تريا واحد هذا العلماء ذهاب السيئات أو إذهاب السيئات لبقى بيود عضا مدي وحوي يعني أنا أدمرك هربا كل عين inaad marka horeba ku dhicin waxyaabaha keena waxa kamida xasanadood badsato oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka markuu salaada tilmaamayo inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar balay waxay ka reebaysaa inaad fuxshi iyo munkar ku dhacdo yani sayi'aday ka hortagaysaa intaanay dhicinba waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka inoogu tilmaamaya dhaqanna bini aadamku uu leeyahay oo cidda qure ka badbaadaa ay tahay musalliinta iyo sifaadka la socda kuwa ilaahay ku sheegay inna al-insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a bini aadamku baa la yidhi sifada halu'a la yidhaahdo leeyahay oo ah khayrku markuu helana waa mid ku dhago aan sii daynin oo waxba bixinin dhibtu markay qabsatana waa mid cataw iyo calaacal badan marka labada dhanna kuma fiicna
keeba ka badbaada xumahaasi ila almusalliin baa ilaahay yidhi dabeetana sifaad baa ilaahay soo taxay xagga dambena waxa lagu gebagabeeyey kuwa salaadooda xifdiya idan salaadu dhaqan xumadaasay marka horeba kaa ilaalinaysaa waxay idhahdaan cahdigii nebiga saxaabada nin baa la sheegay salaadda habeenkii uu kici jiray salaatuleyl laakiin weli haddana gacantiisu wax yaro qaadqaadi jirtay markaasay ka warrameen oo waxay dhaheen ninkani habeenkiina waa tukadaa waxna waa yaro qaadqaadaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina salaatahu satanhaah sidaa aa sheegaysaan hadday jirto salaaddiisaa ka reebaysaa waxay leedahay markaa xasanadu marka koowaad hadday xasanaadkaagu fiican yihiin sayi'aadka way kaa ilaalinayaan haddiiba ay kaa dhacdana sayi oo dhan xasanaad tirtirta laakiin xasanadu waxay ku xidhantahay sayi'adu nooca ay tahay oo maalan xasanatu tawxiid dee waxay tirtirtaa shirki iyo wixii ka hooseeyey oo dhan markuu qofku tawxiidsado gaalnimadiisi iyo wixii ka horreeyey oo dhan buu ka baxaa xasanatu tawba waxay tirtirtaa kabaa'iru dunuub ina alislaama yahda maa qablah wa ina alhijrata tahda maa qablaha ina alxaja yahda maa qablah ayuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan xasanaadka noocaasi ee hadday tahay atawxiid ama hadday tahay xasanatu tawba waxay tirtiraan sayi'ada dhammaanteed oo dhan xasanaadka intaa ka hooseeya haddaad kabaa'irta ka durugto ida ijtunibat ilkabaa'ir acmaasha caadiga aynu samaynaynabaa sayi'aadka yaryar oo dhanna tirtira siday culammadu tilmaamaan oo waa kii nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam salaad ilaa salaadi waa mukafiraatun limaa baynahun inta u dhaxaysay tirtirtaa jumco ilaa jimce inta u dhaxaysay tirtirtaa soon ilaa soon inta u dhaxaysay tirtirtaa ida ijtunibat ilkabaa'ir buu nebigu yidhi haddii kabaa'irta laga durko waayo waxay culammadu inta badan yidhaahdaan kabaa'irtu toobad bay u baahantay waxaa laga yaabaa inaad su-aala isweydiiso oo salaad ilaa salaad hadday tirtirtay oo salaad waliba intii ka horraysay tirtirtay jimcuhu usbuuca muxuu tirtiri markaa maxaa soo hadhay oo haddii la yidhaahdo jimce ilaa jimcuu tirtiraya muxuu tirtiri doontaa ramadaantu waxaan leenahay acmaashaynu samaynaa kullahaa ma wada xoog badna ama maqbuul ma wada ahaba matala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa salaadaynu tukanayno mid baa salaadiisa tusucuha la aqbalaa humuunaha subuucaha sudusuha khumusaha ayuu nebigu soo waday idan safka waa ku wada jirnaa salaaddii maqrib laakiin waa iskaba yartay 100% laga aqbalay waxaa laga yaabaa 10% 12% dee 12% markaa dembigaad maanta oo dhan daldalaysay ma wada tirtiri karto in sha allahu ta dambe inteedii lagugu kordhinaya marka waxoogaagaa jaabajaabe aad la timi marka la isku dardaro waxbay nadiifin haddii wax ka soo hadhaan jimcihii baa nadiifin haddii weli wax ka soo hadhaan oo aan weli waxa waanay sayi'aadkaaguna dee iska tiro badan yihiin waayo dhegtiyo afka qura haddaynu eegno waagu markuu bariyo ilaa iyo intaad ka seexanayso waxay u badan tahay inaad ama hadlayso ama mid hadlaya aad dhegaysanayso inteebaa khayr aad u malaynaysaa marka waagu saaka markuu kuu bariyaad soo kacday ilaa iyo caawa intaad ka seexanayso ama adaa hadlayey ama mid hadlayaad dhegaysanaysay ama tv dhe ama whatsapp dhe ama waxa doonta dhe inteebaa xasana ase inteebaa sayi'a baad u malaynaysaa sayi'aadku markaa waxba ha yaryaraysanayso dhan adigu wadaad baa taho wallaahi shantiina waa tukataa meelahana waad iska fiicantahay maantaba waa daldalmaysay waxaad sheegaysayna khayrku kuma badnayn idan waxaynu u baahan nahay inaynu caqli soo jeeda yeelanno ku dadaallo inaynu sayi'aadkeennu waa tiro badan yihiine inaynu xasanaad tiro badan ka dabageyno ilaahayna waa ka tilmaamaya ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa faulaa'ika yubadilu allaahu sayi'aatihim xasanaat kuwii toobad keenay ee iimaan laga helay ee camal wanaagsan sameeyey
kuwa ilaahay wuxuu leeyahay sayi-adoodii hore qabla alislaam samaynayeen ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xasanaad. haddaba qofnaba kama maarmo toobad. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa tilmaamaya axaadiista saxiixa ah aktar min 70 mara aw 100 mara inuu toobad keeno isagoo macsuumoo ilaahay doortay, isagoo ilaahay rasuulkiisiiya. famaa baaluk dadkeenna ka hooseeya maxaad u malaynaysaa? marar badan cibaadadeennaa u baahan in laga istakfirulaysto oo aanu cuntamin wax ilaahay lala hortagaba inay noqoto, inay dembi kaa rogto daaye. walidaalika baa in badan waxaad arkaysaa nusuusta istikfaartu cibaadaadka dabadood bay soo aroorta. salaadda markaynu tukanno markaad salaamo naqsataa lagu yidhi waxa ugu horreeya aad tidhaahda ha noqdo maxay? astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah. cibaadada u samaysay maxaad ka istakfirulaysanaysaa? yacni waxaad garanaysaa wax rabbi lala waajaha inaanay ahayn intii yarayda aad imika samaysay. dabeetana waa jabraanu naqs. wixii gaabnidaadii baad rabtaa inaad ku dhammaystirto. marka walaaladaan wakhtiga u soo koobayaay waxaan ku gebagabaynayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam saasuu inoo tilmaamay wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha. sayi-aadkaa tirada badan le aynu samaynayno xasanaad inaynu ka dabageyno. wardi ha noqoto, qur-aan la akhriya ha noqoto, dacwo la sheega ha noqoto, salaad la tukada ha noqoto, dikri kaloo lala yimaado ha noqoto, khayr inaynu ka dabageyno. ilaahayna wuxuu inoogu tilmaamaya aayadku sheekhu akhrinayay ina alxasanaati yudhibna asayi'aat. saxaabigaa gabadha soo dhunkaday ee dhibtu ka dhacdayna markii uu la tukaday waxaa la yidhi miyaadna la tukanin? haa buu yidhi. bes waa kugu filantaa loo tilmaama. wuxuu yidhi ma keligii baa iskale arrintaa? may buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bal lijamiici ummatii kullu, ummaddaydoo dhan baa iskale. sayi-adaasi in tooba laga dabadgeeyaa waa waxa islaamku kaga soocan yahay baan odhan karnaa diimo badan oo dunida yaalla. christianitigu waxayna leeyihiin nebi aadam dembiguu galay ayaa ciise loo deldelay si uu khati'ada uga maydho. innagoo qur-aanka ku hayna walaa taziru waasiratun wisra ukhra. aadam wixii uu galay cid kale looma haysto, adna waxaad gashay cid kale looma haysto. laakiin ilaahay baabkaasi toobaduu inoo furay iyo xasanaadkaasi ee aan dadaallo. wasalaamu calaykum waraxmat ullah. 5 daqiiqa inoo soo hartay. haddana qaybtii saddexaad ee xadiidka waxaan ku wareejinaynaa أخونا الفاضل الشيخ الدكتور علي محمد صالح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فضيلة الشيخ الدكتور كمها سيس ودوينتيسا كنت نين عربة وقبيلة وحيري أي كم إذا بيتيسا كحامل تمر إلى يثرب ليأكل yiraahdo madiina munawwarad aadaya oo haddana u yiraahdo waxaan qaadanayaa inta soo juuni oo timir ah. madiina timir ma laga baahan yahay? isma baadina madiina timir ma laga baahan yahay? laga baahana. marka inaga dabcan meesha culumaa joogta. haddaba meeshu iska barakaysan tahay, laakiin mar haddii la soo gaaray waa hadiyadii aan gudbin lahayn. ikhwaani, qaybta saddexaad ee xadiidka waxay leedahay wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan. dadka dhaqan wanaagsan kula dhaqan. nebiga sala allahu calayh wasalam waxa laynaga doonayo oo ah dadka inaan kula dhaqanno buu wuxuu ka dhigay nakara, kadibna wuu sifeeyey wuxuu yidhi xasan buu yidhi. haddaba akhlaaqda min xayfi hiya isku soo duuduube waa immunity system, waa qaybta jihaasulmanaacaha qofka bini aadamka ku jira. haddii jirkaaga la rabo in cudur la qaadsiiyo waxaa la dilayaa jihaaskaas jirkaaga ku jira ayaa la dilayaa si cudurkii jirkaaga uu qaado. qofka marka la rabo in islaamka laga marin habaabiyo ama meel kale laga tuuro akhlaaqdaa laga dilaa. inama almu'minu akhlaaq wamaa baqiyat fain humu dahabat akhlaaquhumu dahabu waatanuu lahaa shawqi. ummadoo dhan ba akhlaaqdan bay ku jiri kartaa. haddaba waxaan rabaa inaan ogaano maxaa loo dilayaa jihaasilmanacahaas.
ما أنت سادوكتهين وحنا هي بقولك بسدح إلى باتن عالمك هل كهندوس كيهين شنيتم بوديسته يكيهين تضبط يهودا يكيهين لبق وحال الروا مركه ويلا شاس مرن إلا بوحي dadka lagu buuxinay waa da'yartiina meesha joogta waxa la rabaa marka akhlaaqda la idinka dilo sida duwalkii Spain iyo Portugal Al-Andalus la soo dhihi jiray oo muslimiinta 800 sano ay maamuli jireen waxa kaliya oo cadawga uu ku furto waxay ahayd in da'yarta sidiina oo kala akhlaaqda laga dilo uu og yahay cadawgu in uusan soo jibaaxi karin qalcadeena diineed isaysigeena ijtimaaciga ah isku duubnaanteena umadeed ma soo jibaaxi karo laakiin haddii qufulkaas jihaaz ilmanaaca waa idinka haddii la idin soo maro wax walba way sahlanaanayaan walidaalika Zuwaymer mu'tamarkii weynaa ee lagu magacaabo al-mukhattatat al-isticmaariya wixii colonialismka ama isticmaarka waxyaabaha ay ka tageen dardaaranada waxaa ka mid ah ilan mu'tamar marka laga tiyo tawsiyaad bayaanaad buu leeyahay wuxuu yidhi qolyaha kan ee muslimiinta ah kama adkaan kartaan ilaa aad ka saartaan islaamkooda kamana saari kartaan ilaa aad goysaan xiriirka ilaahay la leeyihiin mana goyn kartaan xiriirka ilaahay la leeyihiin ilaa akhlaaqda ka dishaan mooyaan waa sababta keentay qur-aankeenna min alifihi ilaa yaa'ihi isagoo manduuma akhlaaqiya iswata oo moral iswata ethics wata ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey saa darteed waxaanu helaynaa axaadiid fara badan iyo aayado fara badan markuu ilaahay uu leeyahay وإنك لعلى خلق عظيم عائشنا إلى في حديث البخاري كان خلق القرآن نبينا أوليه خلق مركو شرح يحير البر حسن الخلق كذا لوط حسن الخلق البر فسر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تقوى وحي سوسعتي أو دون تبرت أي مرتي وحي سوسو بيشبتي وحلول دي خلق الحسن بربو مري دون تاسو صامري آخر كتقوى النقطة حديث وحي سوي إيمان يقيبت الشيخ الكامل هذا أخلاق ذا سيادة النبي صلى الله عليه وسلم سيقار وأمان وغير إن من أقربكم إلي مجلسا ذاتك أنيق أكتيد أدو ذاتك إذن كوكوان أكسن يوم القيامة أنا أنيق مجلس كيغا أدو قف أنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذين ميجري أيضا ويجي ما واحد قف أنا ربي النبي والله فارس يوم القيامة إنه دون رادين هل كا النبي يقول بيجري مركب ذاتك أني يقولوا أو ذاتك أخلاق ذو أكسنت كوا يقفوا وأكتد هذا يقفوا من كوا أخلاق ذو يحنتها بير النبي صلى الله عليه وسلم قضوا كلام وحوي وخالق الناس هديلي الناس هو نقول كرا مسلم غير مسلم وخالق المؤمن معها وخالق المسلم معها محايا لأنك كان مسلم كأنا نهين هذا كهر مرو كلمات كان ترى بضن أن أقرينا وحمد تريان هذه فالكانو ويا فلا أن أخلاق وذن ولذلك هو روشة إنك مفكر كامر يريد مقام واحد في 1000 خير من مقال 1000 في واحد هل قف دقن كيسة وروسا ما ينكر وحكى بدلي كره كن قفوت هل كن محاضرة ولا جيري كن كتاب ولا قرأ هل قف علي بدل كده maxaa yeelay ninka kana muslimka wuxuu arkayaa sida punctuality u tahay markaad ballan dhigataan waqtigiisa aad uga soo baxaysid wuxuu indhaha la raacayaa markuu hanti uu ku dhiibto sidaan isu daba marinay wuxuu la socdaa way of behavior saad u dhaqmayso intaasuu la socdaa inta weynta marka uu kasbanay waliyaalika ahmiyadda ay leedahay dadkii gaalada ahaa akhlaaqda halkay ka qaateen oo inta diinkooda maxaa ka soo haray Christianity Judaism maanta maxaa ka soo haray akhlaaqda baa ka soo hartay inta un baa la leeyahay dadka ay u sheegaan akhlaaqdaas iyada ah الإسلام كان لا يبقى ولذلك بوك اللي دي How to Influence Friends كيف تكسب أصدقاء late 80s بوكت best selling books في العالم قفكي من طرف إلى طرف أقريائي أما آيات بصح هذه أما حديث بمالك لا هذه وإنجليش بوكت دي ضدكنا ما أنتوا حبايب كانوا بتفقشوا كويت بوكاس لكن القرآن كان إلهي مركز دي بالله الله معنا سكوا صفحي هذا نيكا كان قال كدرس كاجا وحكوا كاجا قادن كربي هذا ولذلك وحلا إيش جاي وأنتم كأريت المقاطع ذا أحد الدعاة من سودانية إسلام تيسا
waxay daryeel gaara ay siin jireen islaan iyadoo ma aragtay ingiriisa oo da'a waad ogtihiin dadka da'da ah ciyaalka waa ka tagaan lama dareeyo waxaa la geeyaa guri marka amaba isbitaal dadka waaweyn baa loogaga tagaa cid daryeeshay markaa ma laha wiilka waxaa laga yaabaa inuu soo xaadiro ay gabadha ay dhashay waxaa laga yaabaa inay soo xaadiraan marka dhaxalka la qaybinayo inta ka horeysa ma arkaan wax tiritaareyna mala waxa ninkan marka uu ku dhigay nin marka salaada marka uu socdo gurigu maraa waxba uu keenaa uu tiritaaray uu ka warhay isaga islaantiisu isku bedelaan isbitaal markay u baahato way dabcan aakhirkii markii ugu dambeysay ay naf baxaysay ayay waxay tiri horta waxaan u baahanahay bay tiri waan shahaadanaya sida la tilmaamayo kadibna waxay tiri dhaxalkii aniga dhaxalka waxaa la siinayaa bay tiri ninkan suudaaniga ah kuwan aan dhalay ee iyagu soo ordayay ee markaan anigu dhintay yimid kooxayaa laga siinay halkaa marka islaanta waxaa bedelay dhaqanka wanaagsan baa bedelay waxaa kaloo iyadan aan raacinayaa qodobka kale diinteenna akhlaaqda wanaagsan nacam iyadaa jannada lagu galo miftaax maxaa yowma alqiyaama athqalu shayin fi miisaani alcabad xadiidka saxiixa ah waxa ugu culus ee miisaankaaga cuslayn akhlaaqda wanaagsan haddii akhlaaqdu ay iyadu dhantaal gasho ama ay kala dhantaalanto oo halkii la rabay ay gaari weydo qofkaas waxaa laga yaabaa inuusan janno aanu gelin walidaalika arag in salaad keliya janno aan lagu gelin soon keliya zaka keliya aan soon aan lagu gelin janno waxaa muujinay xadiidkii abu hurayra yowma alqiyaama waxaa iman doona nin xadiidkan la socda waxaa iman doona qof muxuu la iman doonaa salaad fara badan muxuu kaloo la iman doonaa zaka fara badan muxuu la iman doonaa soon fara badan haddaba baabulcibaadaat baanu maraynaa salaadiisa ninka kan muxuu marayaa levelkuu marayaa meesha ugu sarraysay baabulcibaadaat baanu ku jirnaa soonkiisa levelkuu marayaa halka ugu sarraysay baabulcibaadaat baanu ku jirnaa zakadiisu halkay maraysaa halka ugu sarraysay intaa bay la socotaan saddexda shay ee ugu muhiimsan arkaanulislaam waa ku guulaysay very successful إلى حد ما هو قوليستي أو بجلد مركب مرملة لكن وحيمد وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا لكن يحبسون ماشي من يسوى كان درباحير القسيي كان أفلقادي كان حوله سأو دردري من وشان كولي ما تغانا ولا يقع وكسو علينا نول ببح بوقيس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مركز إليه وحلقه هذا يا حسنات كيس markaasaa iyagii la siinaya haddii wax la waayana lafihiisa loo soo dhaadhacay waxay dhahaan marka aakhara marka la joogo marka keliya qofka laba mar buu minus gelaya profitkana minus buu ka gelaya waa faa'iidadii lafihina waa loo soo dhaadhacaya marka kan haddii xasanaadkiisa la waayo uu noqdo nin iska zigzaaga uu ka sheekeynaya sheekh oo salaadiisu minus ay ku jirto oo wixiisa dhan minus ay ku jiraan waxaa loo soo dhaadhacaya wixiisa kale halkaa way marka meesha uu tilmaamayo nabiga sala allahu calayhi wasalam haddaba yowma alqiyaama waxaa iman doona khuluqdaas oo qofka waxa u weyn lagu hormariya akhlaaqda markaa si loo kobciyo waxay u baahan tahay daraasaadkeenna tarbawiga ah hadday noqon lahayd madaarista hadday noqon lahayd iskuullada hadday noqon lahayd jaamacaadka intu waxaa loo baahan intuu soo gala manhajkeena inuu soo galo walidaalika waxa ugu wanaagsan ee qofka lagu barbaariyo akhlaaq iyadaa furihii ah waxay dhahaan western studies integrity waxay dhahaan integrity waa qofka inuu dareemo inay marba kamerada ay hayso diintaana loo sheegta muraaqaba yani bimacna haddaanay kamerada xitaa aanay ku hayn qofki inuu dareemo waxba inuusan xadi karin ama is yidhaahdo bahashii baa kugu wajahan oo diiraddaa ku saaran diinta waxayna bartay marba inuu integrity ku jiro walidaalika macno ma samaynaysa inaan ku dhaho internetka ha gelin baabka meesha ha gelin fasaad buug ha furanin ma aragtay meeshan ha gelin qolada ha la hadlin kan ha la fariisan kan wax weydiin macno ma samaynayso waxaa macno samaynaya in aan kugu xiro qalabkii kuu suurtagelin lahaa kan beenta sheegaya inaad tiraahdo been baad sheegaysaa kan zinada kugu yiri inaad tiraahdo soco kan ma aragtay isku dayo inuu madaxaaga u bedelo in aad markaa tiraahdo iga soco walidaalika organizationna shaqaysanaya ikhwaani organizationada freemasoniska weli bishan marka la gaaro shaqadoodu aad bay u badan tahay waxaa shaqaysanaya qolaha liberalismka wax kale maaha tviyadaad ka dareemi karta incikaaskooda waxaa shaqaysanaya wax alla wixii organization walidaalika waxay dhahaan ilaa 25,000 organization oo shaqo kale aanan qabanayn waxa ay ku dhaqdhaqaayaan ay tahay hanti gaaraysa 150 milyaar baa shaqaynaysa wabilakhas
maalmaha la leeyahay high seasonska oo kan hadda ku jirtaan maxaa yeelay waxaa meel walba marka la xiro طبعا meeshiina waan garanayaa inay saas noqon karto oo suurtagal meel kasta marka la xiro Yurub waqtigan marka la gaaro season Christmaska marka la xiro waxaa furan meesha khamrada iyo khamaarka iyadoo lama xiro maxaa yeelay waxaa la rabaa fasaadkaas marka inuu meeshiisa u gaaro awajkiisa inuu gaaro dadka laga shaqeysanayo waa da'yarteen waa dadka laga shaqeysanayo walidaalika qofka marka akhlaaqdiisu ay dhimato wuu bahdalmaya inuu xaday waxba lama aha inuu xisdoomari waxba lama aha inuu marka uu yiraahdo dadka jeebkoodan gali waxba lama aha in aanu waalid ixtiraamin waxba lama aha walidaalika hala yaabina maanta da'yarteenna ama han noqdeen kuwa wadamadeena jooga ama meelaha wadanka ku dhow wadankeena labaad oo kala meelaha aan joogno iyo meelaha aanu ka nimid barnaamijta maanta aad arkaysaan ee aad la basgareeyo waxaa ka mid ah Lost Boys barnaamijku wuxuu diiradda u saaray nimanka da'yarta Soomaalida hadda haddii ducada la furo markii waxaad arkaysaa in la shuyuukhda ha u soo duceeyeen ilma saa naga noqday waxa dhibta maanta ay haysato ama focuska la saaray ama guryaha laga saaray waa da'yarta maxay waxa la og yahay ninkan da'yarta ah ama kan isagu da'diisu weli yar tahay in laba shay la marin karo in la marin karo shahwadii oo jibiliyan oo innately ugu beeran tahay shahwadii already waa diyaarsan tahay iyo shubha marka la geliyo akhlaaqda si loo dilo kaliya ma in TV-da la noo soo maray kaliya maaha special design websites kaliya maaha in la noo sameeyay حتى waxay soo galaysaa macalinka physics-ka dhigaya boqolkiiba hal buu markaa ku soo marinaya kan math-ka dhigaya boqolkiiba hal buu soo marinaya waxa laga yaabaa inuu ku yiraahdo anu fakarkayga waan dhiibtaa laakiin adiga ku taal waana sababta keentay dadka da'yarteena meelahan markii waxbarasho ay tagaan markii waxa bilaabay inuu keen asilo oo noocan ma santaag uu ku jiro oo uu leeyahay diinka waxa la rabay saa inaysan ahayn waxa ugu horeey weeraray waa xuduudi waxa ugu horeey weeraray waa dastuur inuusan diinta ay noqon karin waxa soo dhan markii waxa darba ka soo baxay ninkan ma oga marka nin baa u soo shaqo taga isagu wuxuu moodayaa inuu barayo physics wuxuu moodayaa inuu science u barayo laakiin wuxuu barayaa hawlo kale u barayaa tantii suubiska ismiya sheekh tii suubiska marka insha Allah iska dhameed walaalka nabiga sallallahu alayhi wasallam واتن إله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر رسول كي كد يشيء إذا كوكو سجن تهل النيل النبي صلى الله عليه وسلم بحال كان خلقه القرآن خلق دي زمرك سيجارة لوسفين وإنك لعلى خلق عظيم هذا بس زي أني أديك وإلهي سبحانه وتعالى حال كي يوجه زي سورة قلنا موجودة النبي صلى الله عليه وسلم هيك سنة نقال محل النبي واحد دهان كل ما من خصلة من خصال الخير إلا واجتمعت في المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وح الله وحي خيرات شيء النبي يسوق تكت وح الله هالضبا وحي دهان مركز سقفك وأجاره وأنه كفوا هذا أركانته خطرته سيء الخلقي كو جهله إسقى ذلك أخلاق محمد الجارسي عذرك سقف غير وأنا سكت شيء لكن صورة قل أما إنه وحبرشة وتجو أمراركو أي بيل إنتي واين وحبرشين أقدران تي وحي كنت مركو إني ignorance إيمان جهل إيمان جهل أخلاق حنو كذا أخلاق حنو لبا شهوته أخلاق حما كانتا محل مركو قفك إنه ما يروح حنو قلب أما مصور حنو ضاوضه أما معاكسات وضد وكسم بيو أما ما أنت يشهو مكفكر جهلك كان غضبك أما عرض جهلك كيف حكينا أخلاق حمضة غضب بقى مريض قريه إنه يفرون كوبة محاكيني وحكى لما قفوا عروني والغضب وكلا تجيان إسلامتي وكأحسن قضية وكأحسن وحن معنا لها نسلا رسمار وح قليته أي قليه كوبة برا وحكى لنا ما أخلاقهم كترجميسا أي ظلم وأخلاقهم وحيدا المركبات الأربع أيات جرا وإن الظلم والشهوة والغضب يمارة جهلي أفرت وحيدا أو سيء الخلق لقوم عابه وما شيء كتم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ جامع وخالق الناس بخلق حسن هذا الدراسات كانت ترى بضان اللي نودي سوسيولوجي لا حريره marka shaqada tagtid interpersonal skills ee wada qantaa iyo maxaa integrity noqonayo hebel markuu fariiso kelmadda soo jawaabaya ay workforce sida mentality waxa soo tirada badan leeno aqrinayo waxa la soo dardartay هذه المدرسة المتكاملة منظومة اسودتي قرآنية منظومة اسودتي حديثية انت اللي نو سoo jarjaray باسوق اللي نو كان اننا marka كان نوعا ما حتى دينك وكجر هالكاس منبهر وكيه لكن قفك كتاب الله أقريا قصة يوسف كليه مجالك ما سامح أنت إلهي سبحانه وتعالى درس ونقول ردتك إن الله لطق ما أرك صلوات ربي عليه السلام أرك نبيه يوسف عليه السلام يعني بمعنى حبسي يسوي كجره رياكشن مبحين ونن متواضع بني يا صاحبي السجن أربعة متفرقون
ولا ليه أو دلمية بقول من يمركز وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء كما ما هاللمبة علبة اللي يقول ذي باب كمدهن ما هذا نو هرتاج مركز لا تثريب عليكم اليوم هذا فلما جهزهم بجهازي هذا وحلا وحي مركي يوصل الشمس سر سدين وحوذ وسينيا مركي ببضاعة مزجاة وكردنا وحاصلا ووح كيم أخلاقنا ونكسر هذا أخلاقنا ونكسر مرنا إن برنا وحن كهلنا هذه المنظومة القرآنية أنه يستنوا إلى هنا بالله توفيق. شكرا أخونا الشيخ الدكتور علي محمد صالح خير الله كسي وكلمتي ولا السنة تصال يومي إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله قدره هذا waxaan soo gaarnay qaybtii afraad ee ugu dambeysay fadiilatu sheekh محمد إدريس أحمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر إياه إنه توفيق ذا نوافجيه وحن شيء إنه وحن لقيسنا إننا إلهي سبحانه وتعالى ونواه أنفعه. قيبت هذا الكليجسي وأمانة ذا وكم ذا أخلاق ذا سقوة وين شيخ علي وكسو ختمي دكتورنا حديثكي وخالق الناس بخلق حسن يا أخلاق ذا إسلام كجودهان مركا خلق أمانة ذا أيان راعينا يا وحن جعلها هي مركا هره إن آيات كم ذا إيو أحاديث نبي عليه الصلاة والسلام كسقناتين إذن حصوصيه. إلهي سبحانه وتعالى قرآن الكريم كهو ليه هي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إلهي سبحانه وتعالى وحو إذن أمر يا أمانة إن أده الكيدو قد بسان إدي دكو أمانة يستي وأمانة إسكالهين إن وجود بسان وهذا لا تمادان الله سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين تأهسجار أيو أمانة وجود بورينيا إننا خيانين أمانة وجود الشديدنا وحكسه هرجة خيانة وهذو قفك أمانة دي آن وجودا سيدي أهيد وجودا وحنقنا يا خائن قف نفتي سخيامي إلهي خيامي رسولك عليه الصلاة والسلام خيامي أمدينا خيانة بالمقنعين. إلهي سبحانه وتعالى أساس درت المسلمين مؤمنين تأسيس صريحة وعد وكذا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وحيالها كيني كرا أمانة داس إناد خيانتنا والوحجي واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني بقدين عيالك الله بقوا معروت الله بقوا مرهرك الله بقوا أما حولها الله بقوا وحيالها كيني كرويه أمانة دي إن لو جدًا وسيدي أهيد لو جدًا يقفك مركا وأمانة دي كتو إن لسكتشرو مركا لسكيل عليه. إلهي سبحانه وتعالى وحكو أماني نبي يدا إيو ملائكة إيوه ضدك مؤمنين تعال وصدح ذا إلهي سبحانه وتعالى هولها أدر صدو صدح ذا إلهي در صدوي شغاله رسوشة والرسالات كيسا قارسي ملائكة والرسالات كيسا إيو هوله إلهي سبحانه وتعالى أمر يفوليه خلق ليس إيو ضدك مؤمنين تعال الرميي أو إلهي سبحانه وتعالى واجبات فرو أوامر أوصيه إلهي سبحانه وتعالى صدح ضوضب إلهي سبحانه وتعالى وحقوت المامي إليه دد أمانة دوته رسوشة وحضر كيسان آيات كبضا مثلا في سورة الشعراء نبي والبا نبي نوح وحليه إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
nebi huud wuxuu leeyahay innii lakum rasuulun amiin fattaquu llaha wa atiicuun nebi saalex calayhi salaam wuxuu leeyahay innii lakum rasuulun amiin fattaquu llaha wa atiicuun malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo jibriilu yahay wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ammaanay ammaanada iyo xilka ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhiibay inuu si wanaagsan u guto oo ah waxyiga inuu soo gudbiyo nazala bihi الruuxu الأmiin calى qalbika litakuuna min almundiriina bilisaani carabiyi mubiin dadka mu'miniinta ah waa qayb saddexaad ilahay wuxuu ku ammaanay inay yihiin kuwa ammaanadooda ilaaliya wاladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun calaamadoodana waa mid lagu yaqaano nebiyullaahi yuusuf markii uu yimi boqorkii masr oo xabsiga laga soo saaray arrimihii lagu haystayna uu ogaaday boqorku inay been tahay aan waxba ka jirin dumarkii yani ku iftirooday oo wax ka sheegay iyo waxaas markii uu yimi wuxuu innaka alyawma ladayna makiinun amiin innaka alyawma ladayna makiinun amiin qofka mu'minka oo xataa shaqo loo dhiibanayo calaamadiisa ugu muhiimsan waa ammaanada haddii kale in shaqo loo dhiibo maaha waxba xil ama waxba hawl ah mid gaara iyo mid guud midna in lagu hadlaysto maaha haddaanu lahayn calaamadaas oo waa kan ilaahi subxaanahu wa tacaala qisadii nebi muuse calayhi salaam madyan markii uu yimi alla subxaanahu wa tacala uu leeyahy gabadhii hadalkeeda noo soo qaaday yaa abati ista'jirhu ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam mar kale markii shaqada loo soo bandhigay wuxuu yidhi innii xafiidun caliim xafiidku waa amiin sidaasoo kale nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam aayadda labaad suurata naml ku jirtaa qisadii cifriidka markii uu yidhi yaa ii keenaya carshigii ee boqoraddii saba wuxuu yidhi ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik shaqadaas anaa soo qabanaya oo maxaa yani shaqada inaad qabanayso daliil u ah wa innii calayhi laqawiyun amiin buu yidhi marka horta khaa'in waa ka baxsan yahay dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala hawl u dhiibto ama dadka ilaahay amaan wuu ka baxsan yahay saas darteed buu nebigu calayhi salatu salaam wuxuu ka dhigay calaamadaha munaafiqa maaha mu'miniinta muminku ma noqdo khaa'in ma noqdo arbacu man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisa waxaa ka mid ah ida tumina khaan inta haddaan uga soo gudbo ammaanadu anwaac bay leedahay ama si aan xadiista raaciyo dhowr xadiis aan xusuusiyo nebiga calayhi salatu salaam nin baa u yimi oo wuxuu weydiiyey saacaddii qiyaamihii goormuu dhacayaa markaasuu yidhi nebigu calayhi salaatu salaam idaa dayicat alamaanatu fantadir saaca ammaanada markay lunto waxaad ogaanaysaa adduunku inuu gadoomayo khalaas adduunya gadoon lagu jiro oo qiyaamihii uu dhow yahay markaasuu yidhi wamaa diyaacuhaa oo idaacatuhaa oo sidee loo dayacaya markaasuu wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salatu salaam oo u sii caddeeyey idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi fantadir saaca oo maxay tahay idaa wusida alamru yacni markii arrinta ama umuurta ama shaqada ama wilaayada ama jagada ama mas-uuliyadda loo dhiibo qof aan kuwii aan soo sheegnay ahayn oo ammaano lahayn markii loo dhiibo oo aan ehelkeeda ahayn madaxweyne ku magacow wasiir ku magacow xildhibaan ku magacow boqor ku magacow waxaa doonto magacu bixi mudiir ku magacow manager ku magacow director ku magacow waxaa rabto dheh generaal dheh wax kale dheh generaal jiriyo xanaaqin marka wax kasta oo lagu magacaabo haddaanu ammaanadaa lahayn idaa wusida alamru ilaa gayri ahli way qiyaamihii baa dhow xadiis labaad nebiga calayhi salatu salaam wuxuu tilmaamayaa qofka iimaanba inaanba lagu ogeyn mar haddaanu ammaano lahayn iimaankiisiiba inuu eber yahay laa iimaana liman laa amaanata lahu walaa diina liman laa cahda lahu waa labadii ilaahay mu'miniinta ku ammaanay waladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun wuxuu leeyay nebigu calayhi salatu salaam iimaan ma leh qofkaan ammaano lahayn
يا دين ملأ قف عن بلن لهين حديث صدحات النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا أفر الرمض أما أفر خاصة هذا لا هاي قف مؤمنات هايو أدونك سعادة كوهلايو وحكو في ما بجيران كو صدق حديث رنتوي وحفظ أمانة إلى الحفظ الصوت وقدام بينتي قيامها مركز لتقو حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي حديث مسلم أمانة iyo raximku waxay istaagaan siraadka la mari doono ee jahannama boondada korkeeda la saari doono ayay labada dhinac ka istaagayaan acmaasha kala dama sheegin iyo akhlaaqdii kale amaanada iyo qarab xiriirinta raximka ayaa waxay istaagayaan labada dhinac maxay u taagan yihiin waxay doonayaan inay halkaan u fariistaan ya kadinkan waxay u fadhiyaan dadkii amaanada dayacay dadkii raximka dayacay iyo reeb iyo qabo halkaas ku hari والعياذ بالله تادا كسو غدمنو امانتي marka waxaan fahmaynaa inay arin ballaaran tahay noocyo badan waa leedahay amaanadi cibaadada baa jirta oo cibaadada salaada soonka xajka waxa lagu cibaadaysan amaanadu weysada kullu waa amaano jawaarixda ila ilaahi subkusiyay waa amaano oo inna sam'a wal basara wal fuada ishada xaranta ku arkay waa amaano xanta iyo xumaanta iyo ku dhageysanay waa amaano waa inaad ka dhowrto qalbiga iyo xumaanta iyo xasadka iyo xalka waa amaano sidaas oo kale dadku waxay ku dhiibteen waa amaano shaqadu waa amaano aad hayso hadaad qof shaqo u hayso ama shaqo guud hayso bayع mushtarka hadaad wax iibinayso ama wax gadanayso waa amaano oo miisaankii iyo baagii iyo sida wax loo kala iibsanayo khiyaano lama rabo mas'uuliyadda iyo xilka waa amaano asraarta inaad dadka u xifdiso haddii qof sir kugu amaanaysto inaad khaa'into ma waa amaano hadalka qofka is dhaafsataan waa amaana saas darteed namaamka qofka hadalka qaada ayuu dadka jahannamo lagu silcinayo uu kamid yahay ugu dambeyntii walaalayaal waxaan leenahay amaanadu markay saas tahay oo noloshoo dhan ay dabooleyso waa laba nooc haddana guud ahaan mid khaas iyo mid caam cibaadaadkaaga oo kale salaadii weysadii janaabadii adiga kugu khaas tahay haddaa amaanada dayacdo adiga keliya ku haysata iyo amaano caam oo sida tan baac mushtarka shaqada xilka taas waa mid guud haddii aad xilka masalan amaanadiisa dayacdo waa wuxuu nebigu calayhi salaam uga digi jiray ummadoo dhan 15 milyan ama 20 milyan oo Soomaalida waa ku qaadanaysa waa inaad ogataa oo qiyaamaha qoortaada ku dhigan dad badani ma oga arrintaas walidaalika sidii balanbaalisti bay ku yaacayaan balanbaalisti ama sanad baan soo shaqaystay oo xoogaa baan maartay laba daarood baan dhistay laba daarood xagga dhistay sucluuk baad ahayd shalay sucluuk aan waxba haysan baad xagga ka dhistay xagga keentay amaanada diyaa caadi waa idaa wusida al-amru ila ghayri ahli fantadhir saa'a siraadka la idinku sugayaa ogaada amaanada guud haddaad dayacdo wabillahi tawfiiq culimada dhammaan waan uga mahadcelinaynaa wakhtiga ay soo hureen kelmadii wanaagsanaa ay jeediyeen iyo maalmahanba barnaamijtii wacyigelintii wacdigii ay ka wadeen magaalada aynu joogno ma rajaynaya si fiican iyo aad in looga faa'iidaystay wax badan ay dadku halmaameenna ay dib u xasuusiyeen weli safartoodu ma dhammaanin habeen dambe qaar ka midihii gobolladan xeebta dadkeenna jiray aadayaan dhowr maalmood kadibna mu'tamar iyo kulan kale oo Kampala ka jira oo jaariyadda Soomaalidu leedahay iyo markaas tawxiid iyo culimada qaar ka mid aadayaan waxaan rabaa inaan iraahdo safarta dheer ee wareegga ah waqtiga badan waxay u horayaan dadka daafaha ku kala baahsan dadkoodii ah tala iyo diin waani iyo wacyigelin inay la wadaagaan waxay u tari karaan u taraan culimadu waa hay-adaha lagu magacaabi karee runta ah inaanay xuduud lahayn meel kastoo dadkoodu joogo waa dadkoodii iyo dalkoodii haddii meelo gobollo iyo la kala ootana ooda iyaga ma xirto waxa ay wadaanna waa sideeba aakhriya adduunba loo liibaanaa iyagana ilahi subxana wa taala ajriya xasanaad allah ka siiyo abaalkoodana allaha weyneeyo tii miisaanka xasanaadka maalintii qiyaama ay harsadana allah uga dhigo
tii ay siraadka iyo jidka si fudud ku maraan allah uga dhigo iyaga iyo innagubana ilaahay daartiisa karaamada iyo jannadiisa allah inagu kulmiyo idinkuna waxaad ku mahadsan tihiin dadaalka iyo jacaylka culimmada aad u qabtaan wakhtiga aad ku soo bixisaan iyo dhegaysiga wanaagsan eed dhegaysateen baad ku mahadsan tihiin haddaba 2 saac iyo 20 daqiiqo waxaan rabaa inaan siiyo oon ku celiyo sheekh maxamed idriis axmed dadku sheekh maxamed intaa waraqahana soo gaaray iyo kuwo badan oo ka mid ah dadka qaar badan baa xanuunsan in badan baa jaan iyo cirin meelay dhigeen lala yahay reero badan baa burbur iyo culays iyo khilaaf haysta ubad badan baa tarbiyadoodii iyo qaabkoodii laga cabanayaa duruufo dhaqaaloo badan iyo nolol adag baa jirta dadku isku dhac iyo khilaafaad iyo waxyaaba badan boo xasada iska jira geed weyn baa la yidhi in gubto ay hoos taallaa dadku mar kasta iyo munaasabad kastaba waxaana lagu soo celinayaa culammadu ilaahay ha noo baryaan waxaan idinku tuhmaynaa khayr inaad culimmadii tihiin iyo inaad musaafir tihiinba labadaba waxaan rabnaa inaan ku soo gunaanoodno ducada sheekha markaynu tukannana culammada waa salaami doontaan waxaan uga cudur daaranaynaa xuduurka kariimka ee jooga sheekh cabdirashiid uu yar cajisay saxmadii xalaya waxay tahayba far baa jaban marka waa yar cajisay sheekhii uu galbadayoo mar hadduu kelimaddii jeediyey lugna waxoogay aada u xanuunaysay dana waxaan nidhi ama mid kale laga jabiyaa aad baan u qadarinaynaa jacaylka aad u qabtaan inaad aragtaan inaad salaantaan laakiin hooyadu ilmahooyada aad u jecel mararka qaarkood bay dishaa haddaad buurataan dee waan jeclayntii sax waad jeceshiin ajri iyo khayr al culimmada in la jeclaado waa loo baahan yahay waxaa nabigeena ka sugan sal alla alayh wasalam inuu yidhi waxyaabaha iimaanka waxaa ka mid ah inna min ijlaalillaahi ikraamu dishaybati almuslim wa xaamili alqur'aani gayri alghaali fiihi wala ljaafi canhu sheekh hadda uu baxay oo afafteedii haddaaya waan yar hadli karaa baan u malayn ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid a in la qadariyo oo la ixtiraamo qofka xaamilulqur'aanka ah qur-aankiina aan si xun ula dhaqmin faraa'idkii iyo xuduudkiisiina aan dayicin oon meel cidlaha ku tuurin oon kitaab baxoorin meel qalloocsan iyo waxaan ku raadinayna la gelin sheekha waxaan u rajaynaynaa danniga iyagu wanasalu allah an yakuuna saadiqan inuu kuwaa weynaynteedu iyo qadarinteedu iyo jacaylkoodu ay ka mid tahay min ijlaalillaahi inuu yahay baan u rajaynaynaa saan filayna si ka khayr badan ilaah inuu ka dhigana waa ka rajay oo ka baryaynaa saas darteed waa ka cudur daaranaynaa sheekhu inalama tukanayo laakiin alqaari yaxyaa baa ina tukin doonaa haddii alla yidhaahdo insha allah codkiisii waan soo dhodhoweyn doonaa inaad maqashaan qiraa'ada inaan soo dhodhoweyno oon dhinaca yar kabnaan isku dayeynaa waa mahadsantihiin sheekh maxamed waxaan ku soo gunaanadaynaa ducadaas kadib salaadaan tukanaynaa aadaanka iyo aqamkana waa israacin doonaa الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ محمود جزاك الله خيرا ولي سفر كاس بان نسكوك نهاية المسافرين تنهاية إلهي سبحانه وتعالى نوغديو قبول الله نقبله دعاء شيخنا سداسا شرني وكل دكتورني ما دام هو عاجز جري قاري يحيىنا إن شاء الله تعالى بوسكيسي إنه تجندونه وحنكها يا شيخ رواية عنه قاري يحيى والنسخة الأولى بويري نسخة ذي كواد واي مرك إن شاء الله تعالى إلهي سجنا هو قبله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي سبحانه وتعالى لما أنت فدنبينا الله داف، دنبي والديتنا الله داف، قوتك الله نو إصلاحي، دمرك الله نو إصلاحي، إلهي ويلشي لأن يرد الله نو إصلاحي. إلهي سبحانه وتعالى ودينتي سي قرآنك يسنة حفظي الله كدير يري وين با. إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس الله نو حفظي، قرآنك الله نو حفظي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام الله نو حفظي. والله وضع وقاته ويليه وكل رقمه وكسعد الله نقديه. إلهي سبحانه وتعالى أمود المسلم كان ملك استويجوك تدبات الله قدر الله كارهنا الصومالي ملك استويجوك دبك الله قدر الله دلكني يددكني دبك الله قدر الله على الله قدر الله خلافك الله قدر الله. إلهي سبحانه وتعالى رواقه ينبتقريه الله هو بدله، استعلان الله هو بدله، وذا جري مدنوي وذا صعد وذا شقين الله هو بدله. إلهي سبحانه وتعالى قلوب توضها مذيه، إلهي سبحانه وتعالى كلمة توضها مذيه، إلهي سبحانه وتعالى قلوب توضها يسوس وجيده. ummadda Soomaaliyeed guud ahaan qulubtooda Allah isu soo jiido wixii dhibaato ah iyo khilaaf ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo calaad Allah ka dhalqaado culimada khayrka Allah waafajiyo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku bayaaniyo ummadda oo ku sugan oo ku hogaamiyo Allah ka dhigo Ilaahay subhanahu wa ta'ala yariyo weynba Ilaahay diintiisa anagu xifdiyo wixii cadow oo ummadda shar la doonana Allah naga kaafiyo Ilaahay naga kaafiyo Ilaahay baraayadooda iyo makrigooda Allah iyaga ku celiyo dadka xanuunsan Allah caafiyo كدباتيس دبك الله قدر القاضي أنت عرورت سكن وغطي إلهي هو توسيع هو هجاجي قرة عين الله وديه إلهي سبحانه وتعالى إيمانك إسلام الله هو حفظه إلهي سبحانه وتعالى قفل الباه وحوج عليه أمرات كيسة والنية ديس كجرة إلهي بعطال عليه وخير هو أهل الدنيا آخرة الله سيه إلهي بخزائن تسويته واسعة الله سيه خزائن تس الله بسيه قفل بأمرات كيسة خير كأه يوج عليها الله سيه إلهي وحوج عليه أمرات كيسة الله سيه رقي دمر با إلهي مراد كودا خيرك الله يسر إلهي سبحانه وتعالى لما أنت بخيرك الله إنه يسر ميلك استوى أن جونا تقوى إلهي الله إنه يحفظه أخلاق الإسلام كان الله إنه وصله إلهي سبحانه وتعالى أمانة إيمان قوة وحفظه الله نقدره إلهي سبحانه وتعالى دينتي سنة إنه وصله إلهي سبحانه وتعالى نبتغيه إيمان الدنيا أن الله نقصاره آمين آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير.